Tani waa calaamadaha wanaagsan ee lagu garto qoyska muslimka ah. Waa maxay aabbaha muslimka ah ee wanaagsan ee saalixa ah waxa looga baahan yahay waa tan oo kale. Waa in uu kulmiyo qoyskiisa, waa in uu ku kulmiyo khayrka Allah subxaanahu wa tacaala, waa in uu bara cilmiga rabbi loogu dhowaado, waa in uu bara cilmiga wanaagsan ee xumaanta ka reebaya. Aabbaha wanaagsan ee saalixa ah waa mid mar walba awlaadiisa ku baraarujiya khayrka kana reeba xumaanta. Aabbaha wanaagsan waa mid ku nabadgeliya familkiisa in ay ku xadgudbaan dadka la jaarka ah ama ummadaha kale. Soojada wanaagsan ee saalixaadda ahna waa tan oo kale garab taagan saygeeda. Allahumma najini min alqawmi dhaalimiin ونجني من الكافرين. اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إيمانا ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسيت وعلمنا منه ما جاهلت وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لحجة يا رب العالمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبه فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.